asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhowaada qays iyo raxmed channel aad iyo aad baan idinka raaligelinayaa barnaamijkan idinka ballan qaaday waxyar waan la soo daahay arrimaha jira owgeed waxyar mashquul ayaa noqday insha allahu tacaala waad iga raali ahaanaysiin barnaamijkan idin soo bandhigay hordhiciisa oo aan maanta idiin soo gudbin doono runtii wuxuu ku saabsan yahay nin cunsuri ah oo caddaan ah oo nin madow ku dilay maraykan muddo 21 sano ay hadda ka soo wareegatay dilkaasi oo ahaa dilka ugu foosha xun oo maaragtay si xun oo u dilay oo runtii aan idiin sheegi doono waxaan rabaa inaan idiin sheego horta dad qaar ayaa jiro oo sheekooyinka argagaxle marka looga sheekeeyo oo maaragtay dhibayso haddaad tahay qof noocaas fadla muuqaalkan ha daawanin waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo qaabka wax u dhaceen intaan ka awoodi karo insha allah dalka maraykan waxaa ka dhacay bisha juun 1998 saddex qof oo caddaan ah oo cunsuriyiin ah ayaa nin madow ah jid taagan oo raadsanayo qof qaadayo ama meel xaafadiisa geenayo u istaageen way qaadeen kadib waxay sameeyeen cabbaar markay la socdeen meelay ku leexdeen way istaageen way soo dejiyeen si xun ayay u jirdileen jirdilka bes kuma ekaanine waxay sameeyeen ninkii oo tabcaan ah oo runtii aad iyo aad loo garaacay oo rafaadsan intay xirxireen ayay gaarigooda gadaal ku xireen kabacdi saas ayay laami ku sii jiideen oo jidka la fuuleen masaafo dhan 3 kilomitir ayay saas ku jiidayeen 2 kilomitir camal inta la soconayo naftu way ku jirtay balse ilaa jirkiisa uu gogo'ay oo mara camal hilibba meel ku dhaco si laamigu u jarjarayo oo gaarigana si xowli u wadaayeen aakhirka waxay istaageen marka oo maaragtay jirkiisa oo dhan dhammaaday oo xarigga uun inta ku xiran ka soo laalaado gaarigay ku xireen ilaa heerkaas ayay la gaarsiiyeen dilkaas ayaa wuxuu noqday dilka ugu fool xun oo torture ah oo bani aadminimo ka baxsan oo qof madow loo galay oo taariikhda dalka maraykan galay ayuu noqday waxaa isweydiin mudan sababta oo maxkamadan intaas oo dhan qaadatay 21 sano ninkan cadaaladiisa loo heli waayey aana sababay in maanta la go'aan la gaaro in ninkan maxkamadda ku xukunto dil marka waxyaalahaas waxaan is oran karaa aniga shakhsiyan waxa sababi karo cunsurinimada oo ku faaftay dalka maraykan meel walba ilaa maxkamadda sare ilaa booliis meel walba oo shaqo dowladeed ah cadaanka ka shaqeeya waa cunsuriyiin balse way qarsadaan ma sheegaan hoos ayay hooshooda ka wataan marka maxkamadda taas ayaa la is oran karaa wakhtigan oo dhan gaarsiisay meel walba oo shaqo dowladeed ka socoto ama xukuumadda dowladda cadaanka ka shaqeeyo dhammaan cunsuriyiin ayay wada yihiin balse way qarsadaan ma sheegaan markay imaado shaqada maxkamad oo kaleeto nin caddaan ah wax u geysto nin madow saas ayaa keesta lasdaba wareejinayaa aakhirka marka waxay noqotay sanadyadan dambe waxaa ku soo batay xukuumadooyinka dalka maraykan dhinaca maxkamadaha dowladaha meel walba waxaa ku soo batay dadkan madowga ah ayaa ku soo batay dowladda taas ayaa marka la is oran karaa maaragtay arrinta way soo dedejisay oo maaragtay pressureka la saaray ninkan in cadaaladda la horkeeno oo maanta lagu xukumo in la dilo maxkamadiisa waxaa dilkiisa dowladda maraykan iyo guud ahaan siyaasadda maraykan waxaa ku soo batay dadka madowga ah oo ku soo biireen siyaasadda ayaa marka la is oran karaa pressure culus inta la saaray maaragtay arrintan la gaarsiiyey heerkan hadda la taagan yahay in lagu xukumo nin caddaan ah dil lagu xukumo runtii cunsurinimada waa wax iska jiro oo ninkaas wuxuu ka tirsanaa qolo la oran jiray cunsuriyiinta ah saan hore idiin sheegay white supremacists waa qolo aad iyo aad u xun oo cunsurinimadu intay ku fogaatay heerkaas gaareen ninka intay jir dileen
jirdilka ay jir dileen ku filnaan waysay intay gaariga ku xireen ay magaalada ku wareejiyeen asigoo laami ku jiidayo ilaa hilibkiisa gogo-ay oo meel walba hilibkiisa ku firdhay. wadan walba marka cadaalad darro way ka jirtaa, dalkeennana cadaalad darro ka jirto waan wada ognahay. qofkaa dilay in la xireenin ayaan ognahay. qofka maaragtay ehelada qofka laga dilay ama qofkay jecel yihiin laga dilay, ninkii dilay oo maalin walba hormarmarayo, iska daneysanayo, shaqadiisa qabsanayo, oo ninkii maaragtay qoyskii dadka laga dilana waxba ka qaban karin, oo caloolxumada cadaalad oo loo heli karin. waa waxa iska jiro maaragtay. marka wadankeena way aad iyo aad bay ka duwan tahay. dhinaca marka wadan walba magac gooni ayaa loo bixiyaa. wadankan cunsuri haddii laga yaqaano, wadankeenana qabyaalad ayaa laga yaqaanaa. hal qof oo mado oo la dila iska dhaafay, Soomaaliya kumanaan qof oo la laayay, dadkii ka dambeeyey maxkamad ma la horkeene, cadaalad ma la horkeene? waa maya. kuwii kufsi iyo hooyooyinka kufsado, gabdho yaryar kufsado, dumar la qabo, dumar la qabin, kuwa yaryar waxba u kala soconeen, kuwa kufsaday, cadaalad ma la horkeene? waa maya. marka musiibadan oo dhan socoto oo wadanka dhibaatada ka dami la-dahay arrintaas cadaalad darrada ah, waxaan leeyahay guud ahaan muslim iyo gaalba, qof dhiig bani aadana galay, kuwii laga gardaran yahay ama maaragtay xaqooda oo la haqirana inuu ilaahay xaqooda soo saaro ayaan kusoo gabagabeynayaa. daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin. arrintaas tusaale ahaan ayaan usoo qaadanay. runtii waa arrin aad iyo aad la yaab leh, oo nin madow maanta cadaalad loo helo oo loo dilo. nin madow ah meeqa dishay oo maaragtay ilaa hadda, oo keesas badan oo ilaa hadda maaragtay la solfigareenin, oo maaragtay nin madow ah, nin cadaana markuu madow dilo dhiiggiisa wuxuu la mid yahay eyga oo kaleeto. marka tani waa arrin la yaab leh ayay noqotay. nin cadaan ah madow dilay oo maanta isagana la dili doono. ninka cadaanka ah oo arbacadan soo socoto la dili doono waa kan aad shaashada uga jeediin. ninka madowga oo la dilayna waa ninkaas aad sawirkiisa uga jeediin halkaas. xilliga la dilayo wuxuu ahaa 40 sano jir ayuu ahaa. daawadayaal, barnaamijka ku saabsan ninkii cunsuriga ahaa oo dilay ninka madowga sanadka 1998 oo isagana berri la dili doono arbacada berrito ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad baad umahadsantiin asxaabta cusub oo nagu soo biirtay. soo dhawaada ayaan idin leenahay, gacmo furan ayaan idinku soo dhaweyneynaa. dhammaantiin inta ku taxan channelka Qays iyo Raxma, aad iyo aad baan idinka mahad celineynaa si wanaagsan oo aad nala socotiin. talooyinka wanaagsan iyo kaamentiyada aad maaragtay videoshan uga tagtiin aad iyo aad baan la soconnaa. aad iyo aad baad ugu mahadsantiin runtii. waan idinka mahad celineynaa. haddii aad ku cusub tahay channelkan Qays iyo Raxma, fadlan subscribe taabo, gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification. insha allah hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijyo kale oo aad iyo aad u xiiso badan ayaa idiin soo socdo. barnaamijyada soo socdo waxaa ka mid ah arrinta ninkii xaaskiisa ku dilay Maraykan, Muna Salaad, oo bisha Abriil 2 maxkamadda la saaray, oo arrintaas oo waji cusub yeelatay ayaan isla socodsiin doonaa hadduu alla eedmo. tan iyo kulantideena dambe daawadayaal, nabad iyo nolol ayaan idin rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.